filimka wuxuu ku bilaabanayaa in lagu magacaabo Bong oo xariif ku ah dhankaas iyo cunno karisna waana kan ugu da'da yar qasriga Blue House kaasi oo ah guriga uu joogo ra'iisul wasaaraha Korea. galabtaasi Bong waxaa la ka codsaday inuu qada sharaf u diyaariyo safiirka China. Bong waxaa lagu amray inuu diyaariyo kalluun aanan lafa lahayn. habeenkii marka la gaaray cashadii ayaa la horgeeyay safiirkii, laakiin nasiib xumo kalluunka wuxuu ku dhex arkay dabarka lagu soo jilaabto kalluunka. waxaana dhacday in ilaaladii safiirka ay raadiyaan Bong, kadibna waxay yimaadeen hoteelkii uu jiifay Bong. Bong wuxuu ogaaday inuu khatar ku jiro, waxa uuna go'aansaday in uu ka boodo dhankaas iyo daaqadda, halkaasi oo ay ilaaladu isku dayeen in ay joojiyaan. waxaana dhacday inuu Bong ku boodo meel ay ku jiraan biyo, waxa uuna madax ku dhufsaday salka hoose ee baraagda, laakiin waxaa dhacday inuu sii quuso. waxaana ku soo dhawaaday gabar iyada oo shumisay. cabaar kadib Bong wuxuu is arkay asagoo dul jiifo sariir cajiib ah iyo guri cajiib ah. waxa uuna dareemay inay wax khaldan yihiin. isla markiiba waxa uu ku orday dhankaas iyo miyaaradda, taas oo fajac ku noqotay Bong. waxa uuna garwaaqsaday inuu isku beddelay gabar. waxa uuna is yidhi waad riyoonaysaa. markii uu bannaanka u soo baxay Bong wuxuu arkay gabdho kale oo ayagana bannaanka joogaan, ayaga oo ku magacaabayaan Yohannes. Bong ayaa ka carartay. markii uu bannaanka u baxay Bong waxa uu dareemay in uu waayay xubinkiisa taranka ah, taasi oo fajac labaad ku noqotay Bong. kadibna waxaa la keenay qasrigii. Bong ayaa waxay garwaaqsatay in ay wakhtiga ku safartay iyada oo gaartay 1851 asaga oo ku dhex xaniban jirka Kim So-young. arrinta kale ee ka yaabisay Bong ayaa waxay ahayd in loo diyaarinayo in loo guriyo boqorka qasriga ee isagana lagu magacaabo Kim, loona diyaarinayo in ay boqorad noqoto. kalkaaliyayaasha waxay u sheegeen in jirkeeda laga helay haro ay biyo ku jiraan. Bong wuxuu ogaaday in gabadhii shuminaysay ay sabab u ahayd dhibaatadan, waxayna istiri si aad midnimadaada ugu laabatay waad inaad aadaa haradii. waxayna u carartay dhankaas iyo haradii ayadoo ku booday. waxayna ku dhacday haradiiyo angegan oo ciid keliya ay taalo. waxayna ogaatay in haweenayda qasriga ay amartay in la qallajiyo haradii si ay Bong ugu baxsan, ayadoo aaminsan Bong in fursadda keliya ay ku laaban karto ay tahay meel biyo ay ku jiraan. waxayna bilowday inay isku tuurto meel walba oo biyo ku jiraan, xitaa haddii ahaadaan weelalka. laakiin qorshaheeda ayaa u suurtagal waayey. waxa uuna noqday hal bacaad lagu lisay. iyaan kadib waxaa bilowday qabanqaabadii arooska, taasi oo argagax ku noqotay Bong. habeenkii xigay Bong waxaa lagu martisooray qasrigii boqorka si ay ula seexato, isagoo qamri siiyey boqorka si uu u suuxo. nasiib wanaag qorshaheeda ayaa u suurtagalay, boqorkiina waa uu suuxay. maalintii xigtay Bong ayaa soo kacday, waxaana loo keenay quraacdii. maalintii xigtay waxay ku amartay cunno kariyayaasha inay u kariyaan waxa ay doonayso, waa ayna ka aqbaleen. cunno kariyihii ayaa isku daygii ugu horeeyey Bong ayaa waxaa loo keenay cunno ay ku yar tahay dhadhanka, waxayna ku amartay cunno kariyaha inuu u badiyo dhadhanka. cunno kariyihii ayaa ku wareeray, waxaanu ku amray Bong inuu asaga karsado cunnada. Bong oo hore u ahaa cunno kariye xirfad badan ayaa waxa uu bilaabay inuu si cajiib leh ugaga yaabsado cunno kariyayaashii, heer ay gaaraan in ay ka maseeraan. waxa uuna karsaday cunnada dooqiisa ahaa. cunno kariyihii oo maseersan ayaa waxa uu is yiri inuu dhedhamiyo cunnadii ay karisay Bong, laakiin waa uu fajacay macaanida cunnada ay karisay darteed, heer ay gaarto inuu qaandadii xitaa uu iloobo. maalintii xigtay Bong ayaa wuxuu ka codsaday cunno kariyihii qasriga inuu tartan la galo, kaasi oo ah in lagu tartamo degdega cunno karinta. waa uuna ka aqbalay. tartankii ayaa bilowday. daqiiqado kadib Bong ayaa guulaystay, waxa uuna yeeriyey gambaleelka guusha. cunno kariye ayaa xanaaqay, waxa uuna yidhi in cunnada Bong aysan wax dhadhan lahayn, keliya uu degdeg u kariyey. Bong ayaa ka ogolaatay in la dhedhamiyo, la iskuna barbardhigo cunnadeeda iyo ninka kale. waxaana soo baxday in cunnada Bong ay ka macaan tahay. maalintii xigtay boqorkii ayaa wuxuu marti qaaday safiiro ka socdaan gobollada dhan, laakiin nasiib xumo
cunno kariyaashii ayaa jiraday jikadiina waxaa ku yaraa shaqaalaha iyo cunnada. Bong ayaa wuxuu garwaaqsaday arrintani waxaan u go'aansaday inuu xal u keeno. Bong wuxuu ogaaday in ay khudaarta ku yar tahay xaaladaas ayadoo taagan tahay. Bong wuxuu ku khasbanaaday inuu ikhtiyaar la yimaado. waxa uuna ikhtiraacay baradho la jarjaray dabeedna si fiican loo shiilay, taasi oo ah wax ku cusub. martidii kuma aysan farxin cunnadan cusub, laakiin marka ay dhadhamiyeen waa ay la fajaceen dhadhanka wanaagsan ee baradhada, taasi oo keentay in Bong uu noqdo qofkii ugu horeeyey ee tijaabiyo cunnada noocaas oo kale. waxaana loo bixiyey magaca fast food. haweeneyda qasriga ayadana sidoo kale waa ay soo dhaweysay. maalintii xigtay haweeneyda qasriga waxay Bong ka codsatay, laakiin intaysan codsigeeda dhammaystiran Bong ayaa waxay ku amartay in ay dib u buuxiso haladii. waa ayna ka aqbashay, laakiin nasiib xumo maadaama ay tahay 1851 ma aysan jirin farsamo biyaha loogu geey karo meeshaasi si sahlan. waxa ayna ku khasbanaadeen in ay gacantooda ku qaadaan biyaha. Bong ayaa wuxuu la yimid farsamo cusub, asagoo ku amray in la isku dhiibo biyaha. dadkii ayaa soo dhaweeyay farsamadani maadaama ay sahlayso shaqada. maalmo kadib haradii ayaanan si fiican u buuxsamin, laakiin Bong ayaa daashay maadaama farsamadan ay tahay mid waqti dheer u baahan. iyaan kadib roob ayaa da'ay. Bonna ayaa zaad u farxay, waxa uuna bilaabay inuu dheelo farxad awgeed. saacado kadib markuu roobka istaagay haradii ayaa buuxsantay. Bong ayaa wuxuu u dhawaaday haradii asagoo ku booday biyihii, waxayna hoos u quustay haradii. Bong markii uu soo kacay wuxuu is arkay asagoo hosbitaal joogo. waxa uuna arkay dadkii eryanayeen. waxa uuna isku dayay inuu mobil ka qaato, laakiin ninkii ayaa ku soo baraarugay. Bong ayaa ka cararay, waxa uuna ka booday meel gidaar ahayd. waxa uuna gaaray meel xarun. Bong waxa uu gaaray library, waxa uuna codsaday buug taariikhi ah. waxa uuna ogaaday inuu ku jiro buugaaga taariikhda inuu ahaa ninkii ikhtiraacay fast food. waa uuna ku farxay arrintaasi. raggii eryanaya ayaa ku yimaaday Bong. Bong ayaa isku dayay inuu ka cararo, laakiin askartii ayaa waxay ku yireen in ay samaysan u joogin in ay Bong xiraan. waxayna u sheegeen in madaxweynihii la bedelay maadaama uu waqtiga ku safray. haddeertaanna Bong waxaa loo sheegay in uusan fakad ahayn, aanan la raadsanin. taa beddelkeeda waxay u joogaan meesha in ay ilaaliyaan. Bong asagoo fajacsan ayaa waxa uu aaday dhankaas iyo kombiyuutarka si uu u xaqiijiyo waxa ay sheegayaan. durbadiiba waxaa soo baxday in ay run sheegayaan. waxa uuna garwaaqsaday Bong in uu waqtiga isbedelay. muuqaalkana meeshaas ayuu ku egyahay daawade.